Joker indhaha isku qabo. laakiin awoodan xoogan ma ahayn mid uu ku dhashay wax walban waxay bilaabmeen markii uu yaraa ku dhawaad 12 carruur ayaa loo qaaday shaybaar qarsoodi ah agaasimihii shaybaarka ayaa ilmo kasta ku muday seeram buluug ah isla markaas kadib carruurtii waxay bilaabeen inay helaan awoodo ka sareeya kuwa caadiga ah anigoo ah Roger waxaan lahaa awood aan ku dhaqaajin karo maskaxdayda wax kasta laakiin waqtigaasi awooddaas ma xakameyn karin waxaan daawanayay kursigii horteeda yaalay oo ku dhacay darbiyada hareerahooda kursigaasina wuxuu ku soo duulay dhankeyga intuusan igu dhicin wiil da'deeda ah ayaa soo orday isagoo naftiisa aan ka fikiraynin ayuu igu soo booday oo dhulka igu tuuray taabashadiisii iyo geesinimadiisii ayaa si tartiib ah u dejinaysay awoodeedii baxsanaysay markaas ayaan bilaabay inaan xasilo wiilkaasi wuxuu ii sheegay awood uu dhimashada kaga soo laaban karo xitaa haddii uu dhaawac dilaa ahi gaaro mar kale ayuu soo noolaan karaa dhiirigelintiisii ayaa ku dejiyey cabsida qalbigayga ku jirtay ugu dambeyn waxaan bartay sida loo xakameeyo awooddeeda telekinesis waxaana si fudud u maamuli kariyay walxaha igu hareeraysan laakiin si lama filaana shaybaarkii ayaa qarxay dhammaan shaybaarkan wuxuu isku bedelay burbur sanado badan ayaana kasoo wareegtay dhacdadaas maalin nin duq ah oo qashin ururinayay ayaa si kama ah ugu dhacay bulaacad wasaqaysan markii uu ka soo baxay gacmihiisa waxaa ka soo baxay miisaan kaluun u eg dhiiggiisana way daateen jirkiisana wuxuu bilaabay inuu isu bedelo makhluuq kaluun la mid ah kadib ninkii waa la waayey gabadhuse waxba kama ogeyn arrintaas ayadoo rabta inay lacag madax furasho ah ka hesho ayeeyadeed ayaa qorshe u samaysay waxay saaxiibkeed ka codsatay inuu iska dhigo afduube waxay bilaabeen inay duubaan muuqaal afduub oo been abuur ah laakiin intay duubista socotay ayay si kadis ah wadna istaag ugu dhacday xitaa cod ma soo saari karin saaxiibadeedana way sii jeedeen mana arki karin waxa dhacay markii hore waxay u maleeyeen in muuqaalka weli uusan dhab u ekaan waxay rabeen inay mar kale duubaan markay dib u eegeen ayay arkeen gabadhii oo aan dhaqaqaynin waxay markii hore moodayeen inay kaftamayso laakiin markii dambe waxay ogaadeen inay neefsanaynin labadii wiilna aad bay u argagaxeen waxay ogaayeen in meel cidla ah joogaan wax kasta oo ay sheegaanba dadka kale waxay u qaadan doonaan inay dileen cabsi darteedana waa ay gariireen ujeedkooda waxa ay ahayd oo keliya in khiyaano lacag lagu helo marna ma filaynin inay dhimasho ku dhammaan doonto waxay sameeyeen qorshe oo ah inay meydka qariyaan waxay heleen gaarigacan yar waxayna ku dabooleen bac duug ah habeenkii ayna si qarsoodaha ugu jiideen qashin qob ku taal magaalada balankeeda isla goobtaas ayaa horey ugu dhacay ninkii duqa ahaa taasina waa godkii wasaqda ahaa ee sababay isbeddelkiisii haddaba la soco part 2